أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان مفتاح الجنة. فصل هذا متكن فاصل مدوح كلا سارو في بيان مفتاح الجنة. وحو فصل ياهي فرها الجنة عدين تيدا كلمة لغت المامو فرها الجنة وقفكو jannadaba uusan gelaynin ilaa kelimadan uu macnaheeda ka aamino oo uu caqiido ka dhigto kuna camal falo macnaha ay keenayso kelimadaas. wahiya kelimadaas waxaa lagu magacaabaa kelimatu tawxiid wa kelimatu likhlaas wa kelimatu najaah. magacyadaas ayay kelimadaas iska leedahay. waxaa la yidhaha kelimatu tawxiid waa kelimada laa ilaaha ila allah. waxaa kaloo la yidhaha kelimatu likhlaas. waxaa kaloo la yidhaahaa kelimatu najaat, waa kelimada lagu badbaado oo looga badbaado cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. kelimadaas marka macnaha ay leedahay ayuu fasalkan gaaban uu rabaa sheekha inuu uga hadlo. marka welina wuxuu ku dhex jiraa sheekhu raximahu llahu tacaala qofka inta aan dahaarada iyo salaada iyo soomka iyo sakada arrimahaas oo dhan waxay ka ansaxayaan qof laga helay arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan. marka wuxuu rabaa marka hore sheekha inuu ina baro arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan iyo kelimatu laa ilaaha ila allahu macnaha ay leedahay. intaas qofku markuu ogaado ayaa waxaa ka ansaxaya salaad iyo soom iyo zako iyo xaj. maxaa yeelay mar walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu soomka iyo salaada iyo ka hadlayo wuxuu ka hormariyaa iimaan inay shardi tahay. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الsiyaamu kamaa kutiba calى aladiina min qablikum. kutiba calaykum الsiyaam waxaa laga hormariyey iimaan. yaa ayuha aladiina aamanuu maxaa yeele qof muumina uun ayaa soomka uu ka ansixi karaa. yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilى الsalaati faغsiluu wujuuhakum wa aydiyakum. salaadiina oo dahaaradeedii waxaa laga hormariyey yaa ayuha aladiina aamanuu. waxaa yidhi qof aan iimaan lahayn dahaara ka ansixi mayso, salaaduna ka ansixi mayso, cibaadaadka o dhanna kama ansaxayaan. saasuu marka sheekha usuul uddiin iyo qadaaya tawxiid uu u soo hormariyey. wa macnaa laa ilaaha ila allaahu, laa ilaaha ila allaahu macnaheedu waxa wooye laa macbuuda bixaqin, ilaah xaq lagu caabudo fi lwujuudi ay fi lkown, ifkaan dhexdiisa ma ahaanin, jiritaanka ma ahaanin oo ifkaan ma jiro ilaahay xaq lagu caabudo ila allaahu, ilaahay ma ahaanin subxaanahu wa tacaala. wa macnaa laa ilaaha ila allaahu, laa ilaaha ila allaahu oo kelimada tawxiidka ah macnaheedu waxaa weeye laa macbuuda bixaqin, mid xaq lagu caabudo fi lwujuud ay fi lkown. koonkan ifkaan dhexdiisa ma ahaanin mana jiro ilaah xaq lagu caabudo ila allaahu, ilaahay ma ahaanin subxaanahu wa tacaala. laa ilaaha illa allahu macnaheedu waa sidaas. macnaheedu waxaa weeye yacni kelimadan kelimatu tawxiid ah waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat. nafyiga waxaa weeye waxaa faa'iideynaya laadaa hore, ihbaatkana waxaa faa'iideynaya ilaadaas oo aadaatu listithnaa ka mid a. marka kelimada waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat. nafyi ihbaat af soomaali ahaan macnaheeda waxaa weeye waa diidmo iyo ogolaasho. kelimada waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat oo loola jeedo diidmo iyo ogolaasho. waxa la diidayo waxa la ogolaanayo maxay yihin marka? kelimadu waxna way diiday waxna way ogolaatay. kelimadu waxa ay diidaysay anfinaysa waxaa weeye yacni wax la caabudi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala la barbar dhigi karo cibaadaba ahal u ah inuusan jirin ayay diidan tahay kelimadu, oo laada hore ay diidantahay. ma jiro weye ilaah xaq lagu caabudo ilaa ilaahay mahane subxaanahu wa tacaala. marka maxay diidee? ilaahay kayrkii subxaanahu wa tacaala ayay kelimadu diidan tahay in cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah kale loo nisbeeyo oon alla ahayn subxaanahu wa tacaala. ihbaatkuna muxuu sugi? kelimadu waxay sugayso maxay tahay? waa ilaahay xaqa ah inuu keligiis yahay wax la caabudi karo. wax la caabudi karo ilaahay uun inuu ka jiro
marka nafyiga ihbaatku waxna way diiday waxna way ogolaatay waxay diidi waxa yacni ilaahyaal kale oo ilaahay la barbar dhigi karo ma jiraanay kelimadu ku leedahay kelimadu waxay ogolaataysana maxay tahay allaha xaq lagu caabudi karo inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ifkaan abuurtay wa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu macnaheeda waxaa weye laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudo fi lwujuud ay fi lkown ifkaan dhexdiisa ma ahaanin ila allahu ilaahay mahane subxaanahu wa tacaala ay laa yastaxiqu xaq uma laha an yadila lahu inuu u dulloobo kullu shayin wax walba inay isu dulleeyaan xaq uma laha ila allahu ilaahaya xaq ule maahane wax laysku dulleeyo oo la caabudo ilaahay unbaa ka jira subxaanahu wa tacaala walidaalika kelimadan kelimatu tawxiid ah wuxuu ku tilmaamay nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam inay tahay afdalu dikri wax ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay lagu xuso oo werdi laga dhigto adkaar laga dhigto oo lagu werdiyo iyadaa ugu fadli badan maxaa yeele macnaheeda wuxuu yahay kelimadaas la'aanteedaba hadda wax ansaxaya islaamnimo ma ansaxayso lidaalika xadiiskii imaamu اlbazaar iyo dabaraani labaduba ay warinayeen ayaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi afdalu dikri laa ilaaha ila allah wax ilaahay lagu xuso waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah maxaa yeelay waa kelimatu tawxiid waa kelimatu likhlaas oo wax kale oo la caabudi karo waa diiday ilaa ilaahay xaqa lagu caabudo maahane marka waa kelimo qaali ah xadiis bukhaari uu warinayana wuxuu ku tilmaamay rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam qof helaya shafaacada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka jira kelimadaas qof qiray laa ilaaha ila اllah ascadu الnaasi bishafaacati yowma alqiyaama dadka qofka ugu liibaanida badan maalinta qiyaamaha shafaacadayda man qaala laa ilaaha ila اllah cid kale shafaacada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ma helayso ilaa qofkii yidhi mahane laa ilaaha ila اllah khaalisan min qalbihi isagoo qalbigiisa kelimadaasi ay khaalis ka tahay oo qalban wa qaalaban kelimadaas u hoggaansamay walidaalika qofka waxaa looga baahan yahay marka maadaama arkaanu اlislaam iyo arkaanu اliimaan la ogaaday in qofka arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka ah si dhaba inuu ugu hoggaansamo ma aha qofku inuu afka ka yidhaaho keliya laakiin adiga tusaale ahaan markii lagu yidhi arkaanu اliimaan waxaa ka mid a an tu'mina biاllah ilahay inaad rumayso afka inaad ka tidhaaho ilaahay waan rumaysanahay ma ahane waa inaad ilaahay u hoggaansan tahay waxa ilaahay uu kaa reebay oo dhan inaad ka fogaatid waxa ilaahay uu ku amray oo dhanna ilaa aad ugu hoggaansantid ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin aliimaan billaahina waa aaminsanahayo ilaahan rumaysanaha afka inaad ka tidhaahid ficilkaagii iyo dhaqankaagiina oo u eg yahay qof aan ilaahay rumaysnaynba waa nasiib darro waxay noqonaya marka waxa aad leedahay iyo ficilkaagu inay isbeeninayaan an tu'mina biاllah wa malaa'ikatih iimaanka qadaayaadkiisa iyo arkaantiisa waxaa ka mid a inaad rumayso malaa'ig ilaahay inay jiraan malaa'ig ilaahay waxaa jira malaa'ig mar walba wax xafado la yidhaaho kula socota oo acmaashaada qoraayo iyo kuwo marka adduunyada aad ka tagto qabriga aad gasho qabriga gudihiisa kuugu imanayo munkar iyo nakiir la yidhaaho malaa'igtaas inaad rumaysan tahay waxaa deliil u ah ficilkaagu in uu waafaqsan yahay inaad malaa'ig rumaysan tahay oo inaad ogaatid in wax walba ood samayso iyo waxaad ku dhawaaqdo lagaa qoray malaa'ig kaa qoraya ay jiraan oo qof mutaxafid ahoo is-ilaalin badan inaad tahay oo aaminsan malaa'ig wax ka qoraysa inay jiraan qof rumaysan ficilkaagu waa inuu u eg yahay ama haddaad waxaad doonto ku hadlayso waxaad doontana aad samaynayso haddana afka aad ka leedahay malaa'igaan rumaysanahay inay jirto de waxaa isbeeninaya qowlkaagii iyo ficilkaaga isbeeninaya wa kutubihi wa rusulihi waa sidoo kale qadaaya aliimaan waxaa ka mid a aliimaan bilkutub kutubta in la rumeeyo ee kitaabkii qur'aanka ahaa haddaad afka ka leedahay waan rumaysanahay haddana wixii kitaabku uu kuu diiday oo uu kaa xarimay aad samaynayso dee muumin dhabahoo xaqiiqaa ma tihid afka unbaad muumin ka leedahay oo mima aad ka sheegan iimaan waxaa sidaas oo kale ka mid a rususha in la rumeeyo oo ugu fadli badan yahay nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi haddii aad leedahay nebiy llahi moxamed salى اllahu alيه wasalam waan rumaysanahay inuu rasuul yahay haddana aadan raacaynin raadkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo sunnadiisii iyo dhaqankiisii aadan dabakaynin waxaad afka ka leedahay nebigaan rumaysanahay waxaa weeye miisaan fiican ma laha qiimana ma laha afkaagu walyowmi alaakhira ka mida yowm alaakhir haddaad rumaysan tahay waa in ficilkaaga uu ka muuqdo qof aakhiro rumaysan oo kale waa inaad u dhaqantid oo qof lala xisaabtamayo qabri uu ka dambeeyo
xisaabe ay ka dambayso yowmul aakhir uu ka dambeeyo waa inuu dhaqankaagu u eg yahay alxaasil waxaa weeye iimaanka iyo islaamnimadu sheegasho kaliya ma aha laakiin waa dhaqan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa dadka mu'miniinta ahow silmiga gala silmiga waxaa loola jeedaa bimacnaa alislaam islaamka kulli wada gala qofku waxaa la rabaa islaamka si guud inuu isugu dhiibo oo diinta uu ka wada muuqato dhaqankiisa laakiin qaybna inaad diintii uga dhaqanto haddana afka aad ka sheeganayso arkaanuliimaan iyo arkaanulislaam aad sheeganayso waa isbeenin iyo ficilkaagii iyo qowlkaagu ay isbeeninayaan walidaalika kelimadan kelimo qaaliya wey waqaala bacduhum culimmada qaar waxay yidhaaheen ina kelimata laa ilaaha ila allah kelimada laa ilaaha ila allah 12 xarfan waa xuruufteeda markii la tiriyo 12 xarafay ka kooban tahay falaa jarama ay laa budda waxaa laga maarmaana annahu wajaba biha 12 fariida 12 waajib ayaa laga rabaa kelimadan maadaama 12 xaraf ay ka kooban tahay 12 waajib ayay ku dul saari kelimadu 6 ظaahira wa 6 baatina meeshaas sunna kitaabka uu qorayo waa khalad 6 laga rabaa 6 ظaahira 6 muuqaala iyo wa 6 baatina iyo 6 qarsoon ayaa laga rabaa ama ظaahira 6da muuqata waa fadahaara dahaarada inaad ku dadaashid والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد أعماشا ظاهركا وإنad ku dadaashid haddii aad tawxiidkaagu dhab yahayo وأما الباطنة 6da qarsoon fatawakل ilahay inaad tala saaratid maadaama aad rumaysan tahay ilahay bis inuu jiro وتفويض arrimahaaga inaad ilaahay u bandhigto والصبر wixii ilaahay xaggiisa kaaga yimaado inaad ku sabartid oo hadda tawxiidka yani run uu kaa yahay والرضا qadarta ilaahay iyo qadaha ilaahay xukumka ilaahay raalli inaad ku noqoto wixii ilaahay xaggiisa kaaga soo wajaha وزهد adduunyada inaad liiddo oo adduunyadu agtaada aysan wax qiimaa aysan kaga lahayn maadaama aad leedahay tawxiidaan qarsanahay wa tawba haddii wax gafafu ay kaa dhacaana ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad u toobad keento arrimahaas 12kaasaa ugu muhiimsan waxa kelimadu ay kaa doonayso oo kelimadu ay kaa dalbanayso maaha qofku laa ilaaha illa allah inuu iska yidhaha keliya laakiin muqtadaheeda iyo macaanideeda waa inuu dhaqan geliyo macaanida laa ilaaha illa allah muxamedun rasuulullah faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saarow fii bayaan buluuqi اlmuraahiq wاlmucsir buluuq muraahiq wاlmucsir wuxuu u fasl yahay fii bayaan buluuqi اlmuraahiq wiilkii qaangaarka ku dhowaaday calaamadaha uu ku qaangaarayo in la caddeeyo muraahiq waxaa la yidhaha wiilka markuu qaangaarka u dhowaado kaasa waxaa la yidhaha luqada carabiga muraahiq mucsirna maxaa la yidhaha haweenayda gabadhu markay qaangaar u dhowaatana luqada carabiga waxaa lagu yidhaha mucsir ta'na lalama xiriiriyo oo waxay ka mid tahay waxyaalaha haweenka yani sifaadkooda ah ta'na aan lala xiriirinayn oo ficil yani isimkan uu ka mid yahay ismulfaacilka mucsira la yidhaha mucsiratun lama yidhaha gabadha markay qaangaar u dhowaato muraahiqatuna lama yidhaha ereyga muraahiq luqa ahaan waxaa iskale wiilka markuu qaangaar usoo dhowaado muraahiq gabadhu markay qaangaarka ku dhowaato luqada carabiga waxaa lagu yidhaha mucsira la leeyahy mucsir sabiyatun mucsir waa gabar dhowaatay ayaa la leeyahy oo qaangaarkii u dhowaatay yani marka fasalku wuxuu xadidi doonaa oo uu ka hadli doonaa gabadha iyo wiilka calaamadaha lagu garan karo inay qaangaareen gabadha iyo wiilka calaamadaha lagu garan karo inay qaangaareen calaamaatu اlbuluuqi qaangaarka calaamadihiisu 3 wey calaamadaha lagu garan karo wiilkii iyo gabadhii inay qaangaareen waa 3 calaamo 3daas calaamo fii xaqi اlunhaa waa gabadhaa 3da calaamo iska leh waثnaani fii xaqi dakar laakiin wiilka 2 calaamuu leeyahy marka waxay noqonayaan yashtarikaani fi 2 watanfaridu الsabiyatu biwaaxida haweentu waxay la gaar yihiin 1 calaamo 2 calaamona shirkay ku yihiin wiilka iyo gabadhu 2 calaamo shirkay ku yihiin haweenayduna waxay la gaar tahay 1 calaamo marka 3daas calaamaa lagu gartaa qofku inuu qaangaaray marka bacda bayaan wa tawdiix arkaani اlislaam wa arkaani اliimaan arkaanu lislaam arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan markuu sheekhu soo caddeeyey wuxuu haddana bilaabay inuu caddeeyo calaamadaha lagu qaangaaro limaada marka uu calaamadaha lagu qaangaaro haddana ugu soo hormariyey calaamadaha lagu qaangaaro wuxuu ugu soo hormariyey sheekha arrimahan soo socdee salaada iyo soomka iyo zakada iyo dahaarada arrimahaasoo dhan yay waajib ku noqon karaan waxay waajib ku noqon karaan qof qaangaaray waajib ku noqon karaan
qofkii marka ay waajibka ku ahayeen oo qaan gaaray calaamadihiisa waa in la barto oo la fahmo calaamadaha lagu qaan gaarayo sheekhu wuxuu yidhi waa 3 tamaamu 15 15 taam noqoshadooda sanatan min sanatin ee sana ah fi dakari wiilkii ay u taam noqdaan wal unthaa gabadhiina ay u taam noqdaan calaamadda ugu horreysa waxaa weeye oo shirka ay ku noqonayaan wiilka iyo gabadhu waa in 15 sano mid walbaahi uu gaaro wiilku hadduu 15 sano gaaro waa qaangaar gabadhu hadday 15 sano gaarto way qaangaartay 15kaas sano waa calaamada ugu horreeya oo lagu fahmi karo in qofkani uu qaangaaray qofkan marka hadduu qaangaaro ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye uu qaangaaray macnaheeda waxaa weeye waxaa waajib ku noqonaya takaaliiftii sharciga oo ilaahay uu waajib yeelo dhan ayaa waajib ku noqonaya soomkiyaa waajib ku noqonaya salaadiyaa waajib ku noqonaysa xajkiyaa waajib ku leeyahay hadduu maal leeyahay zakadiyaa waajib ku noqonaysa hadduu maal leeyahay uu ka sakeeyo marka takaaliifu sharciya oo dhan ayaa madaxa ka saarmaysa waajibaadkii oo dhan waxyaalihii muxaramaadka ahaa oo ilaahay uu xarimayna dhammaantood waa waajib inuu ka fogaado hadduu ku dhacona waa loo qoraa marka qofku haddii calaamadan lagu arko yuktabu maa lahu wamaa calayhi waxaa loo qoraa wixii ajir uu samaysto wixii dembiyana waa loo qoraa midda kale haddana wa tuqaamu calayhi alxuduud xuduuddana waa laga oofinaa hadduu sinaysto xaddu zinaa laga jaraa maxaa yeele saqiirnimo waa ka baxay hadduu qof dilo waa la dilaa hadduu waxado gacantaa laga goynaa waa qof weynaaday oo caadiyaho marka takaaliifta wuxuu noqday qof khidaab ahal u ah oo sharcigu inuu la khidaabo ifcal walaa tafcal waxaas sameen waxna ha samayn oo sharciga ku soo arooray oo dhan ayaa ku wajahan isaga marba haddii calaamadaa laga helay tamaamu 15 taam noqoshadooda way sanatan min sana sanaa fi dakari walunha ay u taam noqdaan sanadaas marka xaggee laga fiirin waxaa laga fiirinaa qamariya waa taariikha hijriga ah bishaas caadiga ah ayaa laga fiirin ee sanadkan hadda saacadaha noogu qoran ama kalandarka noogu qoran oo miilaadiga la yidhaah sanadka miilaadiga kaas lagu cabiri maayo qaangaarka waxa islaamku ku cabiray waxa weeye waa taariikha hijriga ah waa bishaas caadiga ah ee cirka ka dhalanaysa taasaa lagu cabiraa taxdiidiya biitifaaq taqriibna maaha waa taxdiidi 15 dhammaystiran oo hal maalin aysan ka dhimanayn hal maalinna aysan ku siyaadsanayn way waxa lagu qaangaarayo oo wiilka iyo gabadhu ay ku qaangaarayaan waa sida yacni culimmadu ay u badan yihiin jumhuurta waxay u badan yihiin in 15 sano lagu qaangaaro ilaa laakiin imaam maalik raximahullahu tacaala isagu wuxuu qabaa 18 sano in lagu qaangaarayo madhabka maalikiyada waxay qabaan 18 sano in lagu qaangaarayo imaam maalik raximahullahu tacaala laakiin sida raajixa culimmaduna u badan yihiin madaahibtuna u badan tahay waa sida hadda sheekhu noo sheegay 15 sano in lagu qaangaarayo maxaa yeele waxaa daliil u noqonaya xadiiska ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayey imaamu muslimna xadiiskaas xadiis la mida ayuu saxiixiisa ku wariyey xadiiskii cabdullahi bni cumar saxaabigii ahaa wuxuu yidhi saxaabigaas curiltu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay alla ii soo bandhigay wa ana ibnu 14 sana anoo 14 sano jira ayaa nabiga la ii keenay calayhi salaatu wasalaam si jihaadka aan uga qayb qaato falam yaranii balaqtu nabigu marka iima arkin inaan qaangaaray waa xadiis saxiixa ibnu xibbaana saxiixiisa ku wariyey muslimkana waxaa ku yimid xadiiskaas xadiis la macno ah inkastoo alfaadda ay ku kala bedelan yihiin marka saxaabigan cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi ma aadan qaangaarin 14 sanaa la ii keenay si jihaadka aan uga qayb qaato cabdullahi bni cumar dib u celiyey nabigu sala allahu calayh wasalam wa curiltu calayhi wa ana ibnu 15 sana faajaazanii haddana sanadkii ku xigayaa nabiga la ii keenay sala allahu calayh wasalam anigoo 15 sano jira markaasuu aqbalay rasuulku sala allahu calayh wasalam uu yidhi hadda jihaadka lagu diri karaa haddaad qaangaartay marka xadiiska ibnu xibbaan iyo muslimna xadiiskaas xadiis la miduhu wariye waxay tusinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dadka ku cabiri jiray 15 sano 15 sano inuu qaangaar uu ugu cabiri jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiis kale waxaa jiray bayhaqi isaguna uu warinaye anas ibnu maalik waa ahar saxaabigaas uu iska leeyahay anas ibnu maalik isaguna wuxuu yidhi ida istakmala almawluudu 15 sana caruurku markuu dhammaystirmo 15 sano markuu dhammaystirmo oo 15kaas sano uu gaaro kutiba maa lahu wamaa calayhi wixii ajirana asaa loo qoraa yidhi wixii dembiyuu galana isagaa loo qoraa yidhi anas ibnu maalik
وأقيمت عليه الحدود وحي حد وقالنا ولا أوجاه هدو سنستو حد سنة أصلا لا جرى هدو يعني وحده قعنتها لا جود هدو قف دله ولا دله وهكذا وقف وين هذا يكال أساس الصحابي يسوونه وكوير أثر كيس بيهقي يا كوري كتاب كيس الليراء الخلافيات كتابك الخلافيات الليراء وبيهقي يسوونه أثر كأنس بن مالك وكوري مركز سدا سوى سدا راجحة صحيحة شن يتبن سنة وقمرية تحديد يعني لقوا قانجارو على مدى اللبات والاحتلام احتلام من كيندو والاحتلام من كيندو احتلام كاسو في الذكر ويلك والأنثى قبل هذا ل9 سنين 9 سنة يكون من كينان احتلامك بمعنى الإمناء يا لولجدا الإمناء قفك إن منيو أي كتم هذا منيو أي كتم هذا هذه مني بقفك أي كتم هذا ويلك يا قبل 9 سنة يجو جرا 9 سنة يجو جرا هذه منيو أي كي ماذا وعلامة سنة يسوي الكاس يقبل سنة قانجارين 9 سنة هذه منيو أي وقت ماذا مركا 9 كسنة ومنيو أي كو إيمان يسو أيضا وحلو عبرة قمرية واحد هو سنة كان هجري جاو سنة كهجري تاريخ هجري جاو وحلو عبرة سنة كهجري جا قمرية كاس حلو عبرة 9 سنة أما 9 سنة هذه ويلكي قبل إيجو كير منيو أي كتم هذا حكم كيس محنقا ويلكي اللي حجرة أما تضبجرة سيد جرة قبل اللي حجر تضبجر أيا وحوي مد واحد مني ويا أيا كيم الكاس ما تسنى أيا قانجار معها وحشر ديا مركو قانجاريو 9 سنة هجار ويلكو 9 سنة قبله 9 سنة مركي منيكو كينان مركز الليلة هي وقانجارين وأنا تحديدية 9 سنة أو لما يسترموي وحديدا هاي عند البيجوري والشربيني خطيب الشربيني إبراهيم البيجوري وحي قبان وحديدا هاي 9 سنة قوان والذي اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقريبية لكن أحمد بن حجر شيخ الإسلام يقول حيلين وأبي زكريا شيخ الإسلام حول جدا زكريا الأنصاري وتقريبي إليهم وهذه هذا المعلومة يكلم منهم 9 سنة لب ملهن إليهم ونقل عبد الكريم عن الرملي وحكسه قوريي أنها تقريبية في الأنثى قبل أن التقريب تهي وتحديدية في الذكر والشيخ سنو كلا قاضي ويلكنا و9 سنة وقوان قبل أن هذه المعلومة يكلم منهم لب ملها ويرملي لكن سيدة الراجحة إمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيسة مجموعة وحكور رجحي أنها تقريبية في الذكر والأنثى ويلك يقبض اللبضوة وتقريبا شيخ نووي ساسو كتاب كيسة مجموع وكور رجحي 9 سنة هذه أي معلومات ميهين يعني دب ملهن والاحتلام من كيندو احتلام كاسو في الذكر والأنثى ويلك يقبض هذا اللي 9 سنين 9 سنة أي كم من كينان محيالي حديث أبو داود وحوها النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري لا يتمى بعد الاحتلام هدي من يتم هذا أقول نما مجرت يري صغير نما ودمات مني هدي يتم هذا لا يتمى أقول نما مجرت بعد الاحتلام قفكو هدي من يكتم هذا صغير نما أقول نما ودمات يري النبي صلى الله عليه وسلم وقان قاريو احتلام هذا ماشي هذا وحديث أبو داود وسنن كيسة وكورنا والحيض حيض كيود على مدى السدحات ومركا يعني قبضنا أقارة والحيض ديقي عادته قبضنا هذه ديق عادة وكي ماذا ديقاس عادته في الأنثى قبضنا هذا اللي 9 سنين 9 سنة أي كحيش قبضنا هذه 9 سنة ديق لغو أركو حلالية هاي وقانقرت وحمركاس واجب كن غناية تكاليفتي شرعي هذا واجب كاهيد كل واجب يكون غن وحواجب كن غناية إنه حجابته وحجابك أي قادته وعورده أي أسطرته وواجب 9 سنة مربى هدي قبله أي كحيشه 9 سنة كهر هدي ديك يماده أيضا الحجرة تضبجرة سيد جرة هدي ديك وكيماده ديك قاسي متو سنايو قانقار كاسي متو سنايو وديك قانقار كتو سنايو معها مركز 9 سنة وتقريبية 9 سنة وقوان ما هدي معلومة يكدي منهن دب ملها بأن كان نقصها أقل من 16 يوما هدي 9 سنة يكدي منهن لحية طبعا معلومات وحكير ويعني زمن لا يسع حيدا وظهرا ووقت يعني سلا أقبلي كرين حيد إيا الظهر أكدما وقت حيد إيا الظهر لبداس أن بوحين كرين وقادن كرين أي أكدما هذه وقت ياسي أكدما يهن دب ملها وتقريبية ولو باللحظة
الملعسب هالنقضة وحكير لحية طبعا مع الموضوع حكير الملعسب هالنقضة وحكير وأما حبلها قبض أور كذا فليس بلوغا قبض هدي أور لغو أركو معناه هذا ما أور كاسي قانقار ما تسنايو بل علامة على بلوغها بالإمناء قبله أورك وحنا تسنا أورك كهر إني قانقارتي إلا قفن مني كينين أور ما يش marka uurku waa laga horeeyaa uur haddaan gabadha ku aragno ka hor inay qaangaartay una tusinaa oo minidiiba ay ku qaangaartay uurka ka horeeyey minida waxaa ka horeeyey uur wa ama khunsaha qofka khunsaha yani waxaa loola jeedaa waa qofka nin caadiyana aan ahayn naag caadiyana aan ahayn khunsaha see ku qaangaari waaya isaga fa xukmuhu xukumkiisa waxaa weeye annahu in amnaa min dakarihi waxaada min farjihi xukima bibuluuqi haddii uu leeyahay cawradii ninka iyo cawradii dumarka labadaba hadduu isla leeyahay oo cawradii haweenkana uu xayd uu ka yimaado dhiig uu ka yimaado cawradii raggana uu mani ka yimaado markaas bisaa la xukumi karaa inuu qaangaaray waa la hubsaday markaa fain wujida axaduhumaa aw kilaahumaa min axadi farjayhi falaa yuxkamu bibuluuqih haddii manidii laakiin ama xaydkii mid ka mida la arkay labadoodiiba lama wada helin ama labadoodiiba waxaa lagu arkay labadii farji mid ka mid ah oo farjigii yani kii cawradii haweenka ayaa labadiiba lagu arkay inay ka yimaadeen xaydkii iyo manidii markaas falaa yuxkamu bibuluuqi la xukumi maayo inuu qaangaaray maxaa la rabaa yani cawrada xagga ragga u egna inuu mani ka yimaado cawrada xagga dumarka u egna in xayd uu ka yimaado saasuu khunsuhu ku qaangaari karaa wainamaa dakara almusanif sheekhu wuxuu sheegay awala mas'ala fi lfiqhi calaamaat albuluuq uu sheegay lianna manaada takliif shareecada dhan waxay ku xihan tahay cala albaaliq qaangaar qof qaangaaray duuna sabiyi wasabiya cunugii sagiirka ahaa gabadhii sagiirka ahaa waxba waajib kuma aha laakin yajibu calى sabiili fardi اlkifaaya calى aslihima addukuur wاlinaad an ya'murahumaa bisalaat laakiin waalidiinta laga rabaa inay amraan caruurta intaysan qaangaarin inay salaada amraan wamaa tatawaqafu calayhi iyo wixii salaaduba ay ku taagan tahay ka wuduu'in wanaxwi wasaqaadka inay amraan wixii la mida bacda istikmaalihimaa 7 siniin idaa mayaza 7 sano hadday wiilkay gabadhu gaaraan in la sii tarbiyeeyaa la rabaa oo salaadii iyo soomkii iyo dahaaradii iyo la amro waxaddu tamyiiz xadka la dhihi karo cunugani waxbuu ku kala sooci karaa huwa an yasira wiilkay gabadhu waa inay ahaadaan bixayثu ya'kulaani waxdahumaa wayashrabaani waxdahumaa wayastanjiyaani waxdahumaa waa inay keligood gooni wax u cuni karaan gooni wax u cabbi karaan gooni ay wax isaga dhaqi karaan musqusha haddii ay galaan u istajoon karaan markaas waxaa leeyahay caqligay yeesheen oo waxaa la amraa salaadii iyo soomkii dahaaradii asturkii kulli waa la amri markaas falaa yajibu اlamru amarku waajib maaha idaa mayaza qabla الsabci bal yusan 7 sano ka hor haddii caqli ay yeeshaan carruurta yarkaa markaas waajib maaha in la amro 7 ka hor laakiin waa sunno wa an ya'murahumaa ayda bisharaa'ici اdiini daahira naxwa soom idaa adaaqa soomkii xataa waa la amri hadday awood u leeyihiin ilmuhu markay sagiirka yihiin walaa budda maca siiqati اlamri min atahdiid amar kaliya carruurta markaysan qaan gaarin oo 7 sano ay gaaraan يعني waxaa sameeyo salaada duko kaliya ma aha laakiin waa in hanjabaadna loogu daro kaan yaquula lahuma waa inuu yiraahdo salliya wa illa darabtukuma dukada ama waa idin karaaci saas waa inuu hanjabaadna ugu daro waalidku wa an yucallimahuma waa inuu labada wiilka iyo gabadha uu baro waalidku anna nabiy sallallahu alayhi wasallam wulida bimaka nabiga in maka lagu dhalay siirada bilowgeeda waa inuu baro maka in lagu dhalay oo ursila fiiha maka in lagu soo diray wa maata fi lmadiina wa dufina fiiha inuu madiine uu ku geeriyooday rasuulku salى الlahu عalيه wasalam magaalada madiine lagu aasay wayajibu ayضا an yadribahumaa calى tarki dalika darba غayra mubarix fi aثnaaءi الcaashira bacda kamaali الtisci lاxtimaali اlbuluuqi fiihi waxaa kaloo sidaas oo kale la rabaa inay garaacaan wiilka iyo gabadha haddii ay ka tagaan salaada waa markii da'da 10aad ay gaaraan 10 sanaba haddii gaaraan waa la garaaci markaas maxaa yeele waxaa suurto gala inay qaan gaareenba ila waxaan soo marnay 9 sano xataa in lagu qaan gaaro aan hadda soo qaadan وللمعلم أيضا الأمر معلمك هذا قرآن كبرية ilmaha saqiirada isagana wuxuu leeyahay inuu amro oo soomkii iyo salaadii iyo dahaaradii iyo asturkii uu amro carruurta la darbu laakiin garaac ma laha garaacaas waxaa iskale waalidiinta iskale oo sharcigu waalid siiyey salaada iyo soomka iyo mucallimku kuma garaaci karo carruurta isagu wuxuu ku garaaci karaa qur-aanka wuxuu leeyahay laakiin salaadii iyo soomkii amar uu leeyahay kaliya inuu wacdiyo waaniyo amro wacyigeliyo maskaxda ka dhis ilaa biidni اlwaliy haddii salaad iyo soom uu ku garaacayo waa inuu waalidka ka idan qaato macallimku wa mithluhu azawju fii zawjatihi oo zawjkuna waa la mid waa inuu zawjadiisa amro falahu اlamru ladarbu salaadda inuu ku garaaco male amar uu leeyahay laakiin
إلا بإذن الولي إن ولي أبيه ذو كلا يقرأ ويراه مهاني والسواك كالصلاة في الأمر والضرب عضيقنا واللمد وحكمة ذلك حكمة الله أمر التمرين وإن لقوا توبرع عرورت على العبادة اللي يعتاداها سيوقع عبادة وقع هذا الدكتان فلا يتركها قفك وسنكتجين عبادة إن شاء الله تعالى هدو قانقار مكتجاي هذه سداس الله سو توبري وإنتو يراب لقوا سو توبري فصل في بيان الاستنجاب بالحجر وحو فصل هي عدينتا كو استجوشدا بالحجر دغخ لغو استنجوده qofka yani markuu istinjoonayo sida afdalka ah ee fadliga badan ee wanaagsan waa inuu biyaha iyo dhagaxa labadaba isku daro dhagaxa iyo wixii lamid ah markii hore inuu saxarada iyo kaadida iyo dhagaxa uu isaga tiro marka ka bacdina biyaha uu raacsiyo biyaha isaga dhaqo sida fiican oo dahaarada kaamilka ah ee wanaaga badan ee ajirka badan waa noocaas inuu sameeyo waxaa kaloo u bannaan inuu biyaha keligii isaga gaabsado biyaha uu ku istinjoodo waxaa kaloo u bannaan dhagaxa keligiis inuu ku istinjoodo oo wax biyaaba uusan isticmaalin iyadana way bannaanta fasalkan marka wuxuu ka hadli markuu dhagax ku gaabsanayo shuruuduu leeyahy dhagax bis markuu ku gaabsanayo shuruuduu leeyahy marka istinjaha oo dhagaxa lagu istinjoonayo wahuwa almusamaa bilmudahiri almukhafif waxaa lagu magacaabaa mid wax dahiriya oo nijaasta fududeeya نجاسة إلا مزولين كرو دغخو وحبو فضوديا بس وأما الماء فهو المطهر المزيل لكن بيها waxa la yiraahdaa mudahir muziila isagu waxbuu dahira waa nazulina nijaasti si caadi u zuulin marka istinjuhu wuxuu leeyahay arkaan qofku markuu istinjoonayo arkaan uu leeyahay yaani waa tiirar laga maarmaana in la helo marka hore istinjaha mustanji waa qof istinjoonayo horta waa in la helo waa qofka waxa la yiraahdaa shakhsiga waxa la yiraahdaa mustanji mustanjan minhu waxa laga istijoodana waa in la helo waxa laga istijoonaa maxay yihiin waa saxarada iyo kaadida kan saddexaadna waxa weeye waa mustanjan fiihi mid loo istijeynayo kan loo istijeynayo maxay tahay waa labada jido ay wax ka yimaadeen meesha kaadidu ay ka timid iyo meesha saxaradu ka timid waxa la yiraahdaa mustanjan fiihi mustanjan bihi mustanjan bihina waxa la yiraahdaa wax lagu istijoodo waa in la helo waa almaa wal hajar وبيه dhagaxi marka arkaantaas afarta uu leeyahay mustanji waxa la yiraahdaa qofka istinjoonay mustanjan minhu waa waxa laga istinjoonay mustanjan fiihi waa meesha la dhaqayo labada jidu mustanjan fiihi mustanjan bihi waxa lagu istinjoonayna waa almaa wal hajar waa biyaha iyo dhagaxana waxa la yiraahdaa mustanjan bihi arkaantaas horta waa in la helo marka qofka markuu ku gaabsanayo dhagaxa kali ah shuruud uu leeyahay oo leeyahay biyo ma isticmaalaye dhagax kaliyan ku istinjoon markuu leeyahay waa in shuruudan la helo shuruudu ijzaa'i al-hajari al-ijzaa bimaana sixa loola jeeda shuruudu ijzaa'i al-hajari dhagaxa uu ansixidiisa shuruudiisi 8 dhagaxu markuu u ansaxayo oo istinja ahaan uu ugu ansaxayo oo dhagax lagu istinjoon karo waa in 8 shardi la helo 8 shardi waa in la helo haddii dhagax markuu ku leeyahay sheekhu alxajar markuu ku leeyahay xajar dhagaxnimadu shardi ma aha dhagaxnimadu shardi ma aha waxa loola jeedaa kullu taahir jaamid qaali'in lin-nijaasa ghayri muhtaram dhagax kaliya yani in lagu isijoodo shardi ma aha qorayaad ku isijoon kartaa qoray soo qaadato baakadaad ku isijoon kartaa warqadaad ku isijoon kartaa waxa shardiya laakiin shayga aad ku isijoonayso ama dhagax ha noqdo ama qoray ha noqdo waa inuu yahay daahir wax nijaasa isagii laguma daahara qaadan karo waa kullu daahir jaamid haddana waa inuu qallalan yahay wax qoyan laguma istinjoon karo waa inuu yahay haddana qaalic maxaa loola jeedaa nijaasta waa inuu fujin karo laakiin haddii dhalo oo kale aad soo qaadatay dhalo zujaajadii dhalaad soo qaadatay oo daboolan dhaladiiada waxaad tiri waa ku istinjoonaa saxaradii waa kugu sii hadlaynay taas ku halayn wuxuu inay fujin karaa aqli yani aqligaaga markood fiirisid wax fujin karaa la rabaa dhaladii oo kale hadaa tira dhaladii aan saxara isaga tirtiri waa si halayn un qaalic waa inuu yahay waxa kale oo shardi ah ghayru muhtaram wax shariicadu ay xushmaysana laguma istinjoon karo wax shariicadu ay xushmaysay مثلا xabad rooti oo kale iyo xabad muufa oo kale iyo kutub cilmi oo kale iyo waxaasoo kale waa xaaraan in lagu istinjoodo wax sharcigu ixtiraam ka dhigay waa waxyaalaha madcuumul jinnigana waa la mid sida lafihii oo kale iyo waa jinniga wuxuu cuno lafaha jinniga ilaahay hilibka u saaraa
oo cunto ilaahay uga dhiga waxyaalahan lagu istinjoon karo marka shuruud ijzaa'i alxajar markuu ku leeyahay waxaa la mida kullu shay bimacna alxajar wax walboo macnihii dhagaxa laga helo oo maxay tahay macnaha dhagaxa waxaa laga helay waa kullu daahir jaamid qaalic gayri muxtaram wax walba oo daahira oo jaamida qaalica haddana muxtaram aan ahayn sharcan an yakuuna dhagaxu waa inuu ahaado bihalaaثati axjaar saddex dhagax waa inuu ahaado saddex dhagax inuu ahaado waa shardi laakiin axjaar marka lagu leeyahay axjaar jamca axjaar waxba shardi ma aha laysa almuraad cadad alaxjaar muraadka tirada dhagxaanta ma aha bal ilmuraad cadad اlmasaxaat muraadka waxaa weeye masaxa saddex goor inuu gaaro saddex goor inuu masaxu gaaro laakiin saddex dhagax oo kow labo saddex waxba shardi ma aha haddaad soo qaadato dhagax afar yacni madax leh afar madax uu leeyahay hal madax gacantaad ku qabsatay saddexdii geesoo soo hartana midba maraad isaga tirtay saddexdii gees waa sax isinjihii waa saxiix laakiin saddex dhagax kow labo saddexaad tiri waxba shardi ma aha haddaad tirsato saddex dhagax dhib ma laha laakiin mafhuumka waxaa laga rabaa cadadulmasaxaat saddex masaxa la rabaa saddex masax marka laysa almuraad cadad alaxjaar bal ilmuraad cadad almasaxaat masaxa inuu saddex gaaraa la rabaa haddii dhagax afar gees aad soo qaadatid hal gees gacantaa ku qabsatay saddexda gees oo kalena saddexdii masaxaad ka dhigatay waa sax wey an yakuuna waa inuu ahaado dhagaxa bihalaaثati axjaar saddex dhagax waa inuu noqdo ow amase halaaثati aطraafi اlxajar waa ku dhahay soo aragt dhagax saddexdiisa gees geeskii kale adaa gacanta ku haysta saddexdii gees walow xasala alinqaab biduuniha duuni halaaثa xataa saddexda wax ka yar dahaaradu haba kuugu xasishee saddex waa laga maarmaan saddex waa laga maarmaan waa liqowlihi nabiga hadalkiisa salى اllahu عalيه wasalam waliyastanji bihalaaثati axjaar waa xadiiskii bukhaari iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maajah iyo imaam axmed intuba waa wariyeen waliyastanji bihalaaثati axjaar nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku markuu isinjoonayo saddex dhagaxa ku isinjoodo waa markii aadan biyo isticmaalaynin ilaa hadalka dhan wuxuu ku saabsan yahay almuqtasir calى alxajar waa qof ku gaabsanaya dhagax hadalkan wuxuu ku saabsan yahay wa an yunqiya waa inuu dhagaxu haddana dahiraayo almaxalla booska waa inuu dahiri karo booska dhagaxu waa inuu maxalka inuu dahiri karo waa shardi maxalka inuu dahiri karo waa shardi waa laga maarmaan bixayثu laa yabqaa uusan meesha ku baaqi noqonayn ilaa aharun wax raada maahane raadkaasoo laa yusiiluhu uusan zuulinayn ila almaau biyo maahane wax kale aysan zuulinayn ow amase sigaaru اlkhazaf ama jilayga yaryarka maahane wax kale aysan zuulin karin haddii raad yaroo biyo in loo isticmaalo maahane wax kale aysan zuuli karin meesha uu ka baaqi noqdo ama jilayga yaryarkaa in loo isticmaalo maahane wax kale aysan zuuli karin raadkaas baaqi noqday dhib ma laha wa an yunqiya almaxalla booskii waa inuu dhagaxu uu dahiri karo waa shardi marka booska maxaa loola jeedaa ma almuraad bilmaxal booska maxaa loola jeedaa maxalka waxaa loola jeedaa alsafxa waalxashafa safxa maxay tahay waa barida yacni meesha maa yandamu cinda alqiyaam waa qofka markuu fadhiisato dabadiisa meesha kala kacaysa oo kala wareegaysa markuu istaagana isku tegaysa oo qarsoomaysa meeshaasa waxa la yidhaha luq ahaan safxa meeshaas way maxalka loola jeeda iyo alxashafa maxay tahay waa meeshii laga kaadiyey maxalulkhitaanka labadaasaa loola jeedaa maxal waa an yunqiya dhagaxu waa inuu dahiraayo almaxalla booska maxaa loola jeedaa alsafxa waalxashafa waa inuu dahiri karo shardiga kale waa shardiga saddexaad wa an laa yajifa waa inuusan qalalin annajasu nijaastu waa inaysan qalalin wa an laa yajifa waa inuusan qalalin annajasu nijaastu waa inaysan qalalin haddii nijaastu hadday qalasho dhagaxu ma fujin karo iyo wixii dhagaxa la macno ah sidii warqadii oo kale iyo qoragii oo kale iyo alwaaxi waxyaalahaas oo dhan ma fujin karaa nijaasu hadday qalasho markaas waxaa waajib noqonaya in biyo la isticmaalo nijaasu hadday qalasho lianna alxajar laa yuziiluhu xiinaidin oo xilligaas haddee dhagax waxba ma tari karo nijaasu hadday qalasho haddee nijaasta qalashadeeda waxaa la mid a sawaaءun jafa kulluhaa aw bacduhaa nijaasta kulligeed ha wada qalasho
ama qayb ka mid oo ha qallasho waa isla mid haddii kulligeed wada qallasho nijaastii tacayana almaa biyaa waajib noqonayo haddii qayb ka midahu ay qallashona biyaad isticmaali markaas dhagax ma isticmaali karti wa an laa yantaqila najisku waa inuusan guurguurin can almaxalli aladii asaabahu cinda alkhuruuji wastaqara fiih nijaastu markay soo baxaysay meeshii ay ku dhacday meeshaas waa inaysan mar labaad ka guurin nijaastu way soo baxday meeshii markii hore ay asiibtay gaartay meeshii ay kaa gaartay waa inaysan mar labaad inta ka guurto boos kale waa inaysan gaarin haddii boos kale ay gaarto biyaad isticmaali markaas biyaa waajib noqonayo biyaha ayaa waajib noqonayo markaas laakiin intiqaalka guurguuridda nijaastu ay guurayso intiqaalku hadduu yahay biwaasitati idaarati alxajar dhagixii aad wareejinaysay markaad iska tiraysay saxarada ilaa nijaastii meeshii waad ka guurina moogtahay waa tiriddaas aad nijaasta maxalkeeda ka guurinayso haadaa laa yaduru shay waxba dhibi maayo taas ilaa waaba lagu khasban yahay moogtahay nijaasta in maxalka laga guuriyo biwaasitati idaarati alxajar dhagax markaad wareejinaysay oo aad masaxaysay nijaasta booskeedii in laga guuriyo waa lagu khasban yahay markaa guurintaas laa yaduru shay taas wax dhibi mayso laakiin maxaa la diidi dhagaxaas waasidadiisa maalin si kale inay ku guurto oo meeshii markii hore ay gaartay maahane meel kale inay gaarto can almaxalli aladii asaabahu cinda alkhuruuj wastaqara fiihi fain kaana almuntaqilu midka guuray hadduu yahay mutasilan nijaastii waa guurtay waana xidhiirtaa kala googo ma laha iyadoo dheeray meeshii ku hallaysan tahay tacayana almaa fi ljamiic dhammaan biyo waa inaad u isticmaasho ow munfasilan kii guuray waa mid soocmay oo ma xidhiiro tacayana fi lmuntaqili faqad qaybta guurtay bishaa biyuhu waajib ku yihiin markaa wayushtaradu aydan an laa yataqadac waa inuusan googo'in najisku fain taqadac nijaas hadday googo'do bian kharaja qidcan cadcadow u soo baxay fii maxaalla boosas kala duwan uu ku kala dhidhibcay tacayana almaa fi lmutaqadic kaa googo'ay kulligiis biyaha markaas waajibaya wa ajza'a waxaa u gudaaya aljaamidu kii qalalnaa fii hayrihi hayri lmutaqadic kii aan go'go'inna dhagaxii aad u isticmaali kartaa jaamidkii walaa yadra'a waa inuusan ku soo darin calayhi cala najiskii aakharu mid kale nijaastii waa in wax kale aysan dusha uga iman wax kale hadday dusha nijaastii uga yimaadaan biyaad isticmaali oo markaa dhagax iyo wixii la midka ahi markaa kuma istajoon kartid haddii waxa dusha uga imanaya waxaa laga soo reebi kali ah caraqa dhididka oo qofku markii uu saxaroonayo dabadii hadday dhididsaneed dhididkii iyo nijaastiiyaa isku qasmay dhididkaasi waa laga maarmaan qofku inuu dhidido waa laga maarmaan dhib ma laha kaas laakiin maxaa la diidi wax aan dhidid ahayn hadday nijaastii ay ku qasmaan biyaad isticmaali markaas maxaa yeele naska wuxuu ku soo arooray midka khaarijka ahee soo baxay midka soo baxay ayuu midka ajnebigaa nasku ma saamaynayo daliilku wuxuu ku soo arooray midka khaarijkaa bis walaa yadra'a calayhi wa an laa yadra'a calayhi aakharu mid kale nijaasa waa inuusan ku soo darin ay najisun mutlaqan horta nijaas kale haddii meeshii ku timaado maalan dhiigoo kale ayaa ku qasmay taas maba la kala qaadayaba biyaa waajibaya mutlaqan muxuu ula jeedaa radban aw jaamidan nijaasta meesha ku imaanaysa nijaas qallalan ha noqoto ama ha qoyanaato nijaas kaleo meeshii ajnebi ka ah hadday timaado hadde markaas biyo unbaad isticmaali aw daahirkaa la kala qaadi daahirku hadduu yahay radbun mid qoyan ama daahir qoyan daahirka qoyan xataa maxaa soo geli kara walow bibalali lxajar dhagaxii aad ku isinjoonaysay xataa hadduu qoyan yahay qoyaankaas hadduu ku qasmo qoyaanka dhagaxiisii haddii nijaastii uu ku qasmou taabto eber wey markaa waa ka guuri biyaad aadi markaa xataa dhagaxa qoyaankiisu dhibaatuu keeni dhagax qalalana la rabaa oon qoyanayn ow daahir markuu ku leeyahay radbi daahirku markuu qoyan yahu dhibaato leeyahay walow bibalali lxajar dhagaxii aad soo qaadatay xataa hadduu qoyan yahay oo nijaastii iyo qoyaankii dhagaxu ay isgaaraan tacayana almaa biyaa caynoobi markaas aw daahir rad hayru lcaraq aan dhidid ahayn dhididka kaas waa la iska cafinaa dhib ma laha dhididkaas cafis wey amaa huwa dhididka wakada daahiru ljaafu daahirku hadduu qallalan yahay ka xasaatin qaruurux yar oo kale falaa yadur taas dhib ma laha markaa wa an laa yujaawiza najisku waa inuusan ka gudbin najiska khaarijka ee soo baxay waa inuusan ka gudbin safxatahu qofka baridiisii iyo waxashafatahu gudniinkiisii
xasafada waa maxalul khitaan waa meeshii laga guday ragga meesha laga gudo oo muuqata calaamadda leh kaasa waxaa la yidhaha xashafa safxana waxaa la yidhaha waa maa yandamu waxaa isku tegaaya min alalyeyni labada bari cinda alqiyaam marka la istaago meesha qarsoomaysa qofku markuu fadhiistana bannaanka imaanaysa meeshaasa waxaa la yidhaha safxa halkaas nijaastu safxadaas waa inaysan dhaafin iyo xashafada maxalulkhitaanka meesha ragga laga gudo labadaas waa inaysan nijaastu ka durkin oo aysan dhaafin nijaastu haddii ay safxada iyo meesha gudniinka ay dhaafto tacayana almaa biyaha markaas caynoobayo dhagaxii iyo wixii la midka ahaa markaas kuma filla wa an laa yusiibahu najiskii waa inuusan gaarin maa un biyo waa inaysan asiibinoo biyo aysan gaarin haddee biyahaas oo hayru mudahirin lahu aan asagii dahirayn biyuhu hadday wax dahiri karaan waa kuwa la rabo laakiin biyaha la diidayo maxay yihiin waa biyo aan wax dahiri karin oo 2 dhibic iyo 3 dhibic oo kale ah 2 dhibic iyo 3 dhibic waxbay kaa hadlayn maahan waxba ma dahirayso marka maxaa la dooni waa an laa yusiibahu maa-un biyo waa inaysan gaarin biyahaas oo hayru mudahirin lahu nijaastii aan dahirayn biyuhu hadday ku filan yihiin maxalka inay dahiraan waa sidii la rabay maxaa la diidan yahay meeshii biyihii wayna kugu sii halleeyeen dahaarana kuma filla taas way waxa la diidayo de markaas waa inaad biyo aad raadsatid wey marka haddii wax gaaraanba wain kaana biyuhu haba ahaado dahuuran biyo wax dahiri karaba ha noqdo ow maayic dareere aakharu kale haba noqdo ama dareero kale ha noqdo bacda alistijmaar markaad istanjootay ka bacdi aad biyihii meeshii ku dhibceen ow qablahu qabla alistijmaar ama intaadan istijoon ka hor waa litanajusihima iyagaaba nijaasoobaya markaas eberow wa an takuuna alaxjaaru dhagaxdu waa inay ahaadaan daahiratan kuwa daahira waxaa kaloo shardi ah shardiga ugu dambeeya dhagaxdu waa inay noqdaan dhagax daahira waa inay daahir noqdaan dhagaxdu inay daahir noqdaan waa shardi haddee dhagaxda waxaa la mida wixii kaloo aanu kor ka soo sheegaynay ilaa dhagaxu shardi maaha waa tii aanu nidhi waa kullu daahir qaalic lilnijaasa hayru muxtaram wa an takuuna alaxjaaru dhagaxda lagu isinjoonayo daahira waa inay shayga aad ku isinjoonayso ama qora ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama baakad ha noqdo ama warqad ha noqdo waa inuu daahir yahay falaa yujzi'u ma ansaxayo alistinjaab bixajar mutanajis dhagax nijaasaysan haddaad tidhaah waa ku isinjoon taasi haddee suurtagal ma aha laba nijaasaysan isma dahiri karaan faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii furuud اlwudu wuxuu u fasal yahay oo fasalka uu ka hadli waajibaadka weeseqaadka waajibaadkiisa qofku markuu weese qaadanayo maxaa laga dooni oo waajiba furuud اlwudu wa huwa almusamaa bilmudahir alraafic weeseqaadka waxaa lagu magacaabaa fiqhiga istilaaxiisa mudahir xadadka kor yeela xadadkiiyuu kor yeeli oo wuxuu uga ixtiraazi marka mudahir alraafic markuu ku leeyahay tayamumkii oo kale booraysiga ilaa carradu marka lagu booraysanayo mudahir raafica ma aha waa mubiixi salaaddii kuu bannaynaya carrada markaad ku booraysanayso mooye xadas ma kor yeelayso waalmuctamad wuxuu yahay annahu weeseqaadku macquulu lmacnaa weeseqaadka sababta loo waajib yeelay waa sabab macnaheeda la garan karo lianna salaata salaadu munaajaatu rabbiyaa lagula hadli salaad markaad tukanayso ilaahad la hadli iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aad leedahay ilaahu adigaan ku caabudaynaa adigaan kaa kaalmo weydiisanaynaa fadalabu tandiif faduliba waxaa la dalbaday atandiifu liajliha ajli lmunaajaat maadaama ilaahay aad la hadlayso waa inaad isnadiifiso qof wasakhaysan lama ogolo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku caabudo salaad wa inamaa ikhtasa ara'su madaxu wuxuu ku gaar noqday bilmasxi madaxa waxaa la yidhi waxba dhaqiddu shardi ma ahan marka la weyse qaadanayo ha la masaxo waa lisatrihi gaaliban maxaa yeele sida gaalibkaa madaxu waa asturan yahay oo dhaqid uma baahna faktufiya fiihi madaxa waxaa lagu kaaftoomay biadnaa dahaarada midka ugu yar oo ha la masaxo un baa la yidhi wa khusat alacdaa'u alarbaca bidalik xibnaha kaleo afarta waxaa lagu gaar yeelay in la dhaqo ha la dhaqaa la yidhi waajib way xibnaha kaleo afartaa in la dhaqo liannaha maxaa yeelay xibnaha kaleo afarta waa maxalu iktisaabi alkhadaaya waa booska dembiyada lagu sameeyo ow amase lianna aadam mashaa ila shajara birijlayhi nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ayaa geedkii ilaahay yidhi ha cunin labadiisa lugoodu ugu socday wa tanaawala minhaa biyadayhi
labada gacmoodna wuu ku qabsaday wa akala minha bifamihi afkana wuu ku cunay wamasa ra'sahu madaxiisana waxaa taabtay waraquhaa geedda caleemaheediina madaxuu ku taabtay marka waa asalkii bini aadamku xibnihii masalkiisiiba uu ilaahay ku caasiyey weeye bini aadamku furuud ulwuduu weesaqaadka waajibaadkiisu 6 wey alawalu kan ugu horeeya anniyatu niyow kow horta waa inaad niyo la timaadid maxaa yeelay nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa camal niyo la'aan ansaxayaa ma jiro camal niyo la'aan ansaxaya ma jiro niyadu marka waxay iska leedahay xaqiiqatu niya iyo waxaa jira xukmu niya iyo maxalu niya iyo zamanu niya iyo kayfiyatu niya iyo maqsuudu niya ayaa jira oo laga maarmaana qofkii marka horeba niyada inuu ogaado waa arrimo ku saabsan xiriirna lale niyada xaqiiqadeeda maxaa tahay ama macnaheeda dhabtaa niyada maxaa loola jeedaa niya waa qasdu shay mukhtarinan bificlih qofku waa inuu shay u qasdo inaad weyse qaadato oo yacni weeseqaad waajib aad weyse qaadato waa inaad niyeysato ficilna aad ku darto xaqiiqada niyada saasaa loola jeeda qasdu shay mukhtarinan bificlih fasalka soo socda ayaana dhihi doona sidaas oo xaqiiqada niyadu fasalkaasi uu noo sheegi doonaa waxaa kale niyadu leedahay xukmu niya niyada xukumkeedu maxay tahay niyada xukumkeedu alwujuub waa inay waajib tahay sunno ma aha niyadu oo haddii aad ka tagtid weesadaadiiba ma ansaxayso weesadaadii ma ansaxayso haddaad ka tagtid waxaad niyeysanee rafca alxadath weese la'aanta inaad iska kor yeesho ama waxaad niyeysanee addahaara can ilxadath inaad xadaska ka daahir noqoto marka niyadu waxay kale leedahay maxalu niya niyadu boos laga niyeystaa jirta oo ay degto maxalu niya xaggee way booska laga niyeysto alqalbu booskeedu waa qalbigaa laga niyeystaa waxaa jira zamanu niya goormaa la niyeystaa goorma ayaa la niyeystaa goorka la niyeysanayo waxay ku xihan tahay biikhtilaafi almanwiy shayga la niyeysanayo yacni zamanka la niyeysanayo waa awalu lcibaadaat zamanku waa awalu lcibaadaat oo maalan hadda weeseqaadka maxaa ugu horeeya wejiga dhaqidiisa koo wejiga markaad dhaqaysid weye zamankeeda markaad niyeysanayso markaasaad niyeysan weeseqaad waajiba inaad weese qaadanayso marka niyada zamankeedu waa awalu lcibaadaat ilaa soomka maahane soomka cibaadadiisu waxay bilaabmataa duluuc اlfajr soomku goormuu bilowdaa salaada subax markay dhalato uu soomku bilowdaa haddana markaas lama niyeysanayo goormaa la niyeystaa soomka habeenkii soo maha habeenkii aa la iska niyeystaa qabla duluuci اlfajr marka waa laga hormaraa soo ma aragtid soomkii waa laga hormaray soomka intaan ka ahayn waxaa la niyeystaa awalu lcibaada cibaado wal markaad bilaabayso salaadda markaad xihanayso aad niyeysan weeseqaadka markaad wejiga bilaabayso ayaad niyeysan kayfiyada qaabka loo niyeysto qaabka loo niyeysanayo takhtalif biikhtilaafi almanwiy waxay ku xihan tahay shayga aad niyeysanayso hadda waxaanu joognaa weeseqaadka qaabkee loo niyeystaa weeseqaadka dee waxaa loo niyeysan rafca alxadath inaad xadadka waxaa loola jeedaa waa weese la'aantii ku dul saarnayd weese la'aantii inaad iska baabi'inaysaad niyeysan ama waxaad niyeysan addahaara can ilxadath ama addahaara lisalaat inaad salaad u dahaaro qaadanayso nidaamkaas waxaa la niyeysanayo niyadu waxay iska leedahay maqsuud ulajeeddada laga leeyahay maxaa sharcigu waajib uga dhigay niyo ha la niyeysto maxaa sharcigu waajib uga dhigay sababta qasadka laga leeyahay waxaa weeye waa tamyiizu alcibaada can ilcaada waa dhaqanka oo caadada iyo cibaadada in la kala saaro ilaa mararka qaar waxaa dhici karta qofku inuu wejiga iska dhaqdo gacmaha iska dhaqdo lugaha iska dhaqdo asagoo ula jeeda nadaafad oo aan cibaado ula jeedin marka weji dhaqiddan inaad cibaado ula jeedo maxaana tusinayo waxaana tusinaya niyada soo maaha niyada marka sababta shareecadu u waajib yeeshay waxaa weeye dhaqan iyo cibaadada in la kala saaro oo xibnahaaga inaad yacni nadaafad iyo caado ahaan aad ula jeedid dhaqidooda iyo inaad cibaado weeseqaada ula jeedid maxaa noo kala saaraya niyada maqsuudu niya marka waxaa weeye tamyiizu alcibaada can alcaada cibaadada iyo caadada in la kala saaro alawalu kan hore aniyatu niya wa ahaani kan labaad gaslu lwajhi wejiga dhaqidiisa niyada marka shuruudna way leedahay u gaara
shuruuddeeda waxaa ka mid a islaam. qofka wax niyeysanaya oo weesaqaad niyeysanaya ama soonka niyeysanaya ama salaada niyeysanaya waa inuu muslim yahay. gaal niyo kama ansaxayso. horta marka hore waa inuu soo islaamo. waxaa kaloo niyada shardiya atamyiiz, qofku caqli waa inuu leeyahay. de qof aan caqli lahayn, qofkii majnuunka iyo waalnaa waxba ma niyeysan karo. carruurka sagiirka ah oo xaddu tamyiiz aan 7 sano weli gaarin, oo caqligii inuu keligii wax cuno, keligii wax cabo, keligii uu astanjoodo weli aan gaarin oo caqligaas aan gaarinna niyo isagana ka ansixi mayso. waxaa kaloo shardiga alcilmu bilmanwi, waxa aad niyeysanayso waa inaad aqoon u leedahay. maalan weesaqaadaad rabtaa inaad niyeysato, dee sida loo weese qaato waa inaad taqaanid. waxaa kaloo shardi ah aلtabaacud can اlmunaafi, wax niyada ka hor imaanaya waa inaad ka fogaato. oo wax niyada wax diidayaa jira. maalan waxaad leedahay weesaqaadaad niyeystay, haddana islaamnimadii aad ka baxday, walciyaadu biاllah, murtadaad noqotay. dee murtadnimada islaamnimada inaad ka baxdo iyo weesaqaadaan niyeysan waa wax isdiidayo, shaqo iskuma laha. wax niyada ka hor imaanaya waa inaadan la imaanin. waxaa kaloo shardi ah cadamu tacliiqi qadcihaa bishay, niyadana waa inaadan shardi ku xihin. haddaad tidhaha weesaqaadaan niyeystay, markuu hebel markuu yimaadaan niyeystay weesaqaad, ma ansaxayso. cadamu taradud fii qadcihaa, waa inaadan ku shakin niyada goynteeda. oo maalan haddii salaaddii oo kale aada niyeysato, laakiin aad tidhaha haddana ma ka baxaa salaadda mise waan sii wataa, ma ansaxayso. salaaddii o dhan waa kaa buri, maxaa yeelay taradud iyo niyo ma is aqbalayaan. waxaa kaloo shardi ah taxaquq almuqtadi, horta waxa keenay weesaqaadka, sababta aad u weese qaadanayso waa in aad xaqiiqo ay kuu noqdaan. maxaad u weese qaadan? sababtan u weese qaadanayo waxay tahay weesadii inay iga burto. weesada buriddeedu waa inay xaqiiqo ku tahay, inay weesadu kaa burto, markaasi niyadu ay ansixi kartaa. laakiin adoo shakisan, weese talow ma weese qabtaa mise ma weese qabtid, bal ma hubtida iska niyeyso uun weese qaad, ma ansaxayso. waa inaad hubto horta inaadan weese qabin, markaas ka bacdi ayaa niyadu saxiix kuu noqonay. niyadu markaas ka bacdi saxiix kuu noqon. athaani kan labaad ghaslulwejhi, wejiga dhaqidiisii wey. waxaa kaloo shardi ah rugniga labaad ama faradka labaad ee waajibka labaad waa in wejiga qofka uu dhaqo. dee wejiga haddii qayb ka mida, hal dhibac ba allah ka dhiga, qayb ka mida hadduu ka tago ma ansaxayo weesaqaadkiisii. wejiga xadkiisa waxaa weeye huwa maa bayna manaabit shacri ra'sihi, meesha madaxa tintu ay ka soo dhalato, iyo wa taxta muntahaa laxyatihi, iyo laftan lafgarayda la yidhaha hoosteeda. laftaa garayda waa garku, timaha garku meesha ay ka soo dhashaan wey. laftaas hoosteeda iyo madaxa tintiisu meeshay ka bilaabanayso, intaas dhirir ahaan duulka, intaasaa weji la yidhaha. wamaa bayna udunayhi, ballacana waxaa weeye labada dhegood inta udhexaysa, wejiga intaasaa la yidhaha, labada dhegood inta udhexaysa. dhirirkana waxaa weeye meesha tinta madaxa ay ka bilaabanayso ilaa laftaas oo lafgarayda la yidhaaho garku uu ka soo dhasho, timuhu garku ay ka soo dhashaan, intaas waa inaad dhaqdo. intaas haddii hal meel oo ka mid a hal dhibac oo kale hadday kaa qalalan tahay weysadaadii ma ansaxayo. marka wejiga waxaa ka mid a xuduudaha aan sheegnay, timaha ku dhex jira, xadka wejka timaha ku dhex jira wejigay ka mid yihiin inaad dhaqdo, waa waajib. daahir wa baatin, daahir wa baatin. maalan tinta la yidhaha xaajibeynka, fa minhu waxaa ka mid a shucuuruhu shucuurulwejhi kalxaajibeyn. tinta xaajibeynka la yidhaha oo kale, xaajibeynka waxaa weeye waa tinta labada indhood ka koraysa, labada indhood korkooda tinta saaran xaajibeynaa la yidhaha. walahdaab, ahdaab alarbaca, ahdaab alarbaca waxaa weeye tinta baararkeeda, yacni indhaha baararkooda, tinta yarkaa indhaha baararkooda, afartaas ahdaab alarbaca la yidhaha. iyagana waa inaad dhaqdo. tintaas dhaqidda ilaa xuduuddii soohdimihii wejigay ku jiraan, soohdimihii wejiga. washaaribeyn waa la mid, shaaribka isaguna waa la mid, shaaribka isagana waa la mid. walcidaareyn waa la mid isaguna, cidaarka tintan yartaa way meeshan ka dhalanaysa, cidaarka isagana waa la mid. fayajibu gaslu daahiri hadihi shucuur wa baatiniha maca albashara. daahir iyo baatinba tintan waa laga dhaqi, allatii korkaasoo taxtaha taxta shucuur, tinta hoosteeda maqaarka waa lala dhaqi. wain kafafa tintaas xuduudda wejiga soo gashay haba fara badato hadday doonto, liannaha min alwejhi, wejigay ka mid tahay. athaaliثu kan saddexaad gaslulyadayn, labada gacmood dhaqidooda wey. maca almirfiqayn, labada xusul micigooda lala dhaqo.
rugniga faradka waajibka saddexaad waa in labada gacmood la dhaqo ilaa xusullada waa inta waajibku kaaga dhacayo waajibku intuu kaaga dhacayo ilaa xusullada laakiin maxaa sunno ah in yacni weesaqaadka kor loo sii dheereeyo maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa wuxuu ku tilmaamay inuu nuurkoodu uu gaarayo meesha weesadu ay gaarto weesadu intaad dheerayso ayaa nuurkaaga iyo iftiinkaaguna uu gaaraa maalinta qiyaamaha ah alraabicu kan afaraad masxu shayin shay masixidiisa wey shaygaasoo min ara'si ee madaxa ka mid a shay madaxa ka mid a haba yaraadee waa inaad masaxdo waajibku wuxuu kaaga dhici walow bacda shacra hal tin qayb ka midaba masax haddaad doonto waajibka waa kaa dhici waa cinda alimaam shaafici hal tin xataa qayb ka mid a haddaad masaxdo ow amase qadraha bacda shacra yacni tin qadarkeed hal tin qadarkeed la eg oo min albasharati korkii ah korkeed waxaad ka masaxday tin haafkeed wax la eg ayaad korka ka masaxday waajibkii waa kaa dhacay maxaa yeelay waxaa sugnaaday xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam masaxa binaasiyati hadda ka hor nabigu wuxuu isaga gaabsaday foodda kaliya foodda bis uu ku gaabsaday masaxa binaasiyatihi wa cala alcimaama cimaamadaa u saarnayd nabigu sala allahu alay wasalam cimaamaddii intuu gadaal u sikiyey uu foodda bis masaxay nabigu sala allahu alayh wasalam marka xadiiskaasuu deliishanaya imaamu shaafici oo waxa weeye qayb un ka mid ah inuu waajibka uu ku dhacayo alraabicu kan afaraad masxu shayin shay masixidiisa way shaygaasu min ara'si madaxa ka mid a alkhaamisu kan shanaad gaslu rijlayn labada lugood dhaqidooda way maca alkacbayn labada anqow micigooda lala dhaqo ilaa anqowyada laga gaaro ayaa waajibku kaaga dhacay laakiin anqowga inaad ka sii kor mariso weesaqaadkiiyo ilaa laga gaaro shanshada kale barkeeda laga gaaro aad sii dhaqdo waa sunno oo ajirkaa kuugu ziyaaday asaadisu kan lixaad atartiibu tartiibin weesaqaadka in la tartiibiyo sida loo soo sheegay waa in loo soo tartiibiyo niyada waa inaad marka hore ugu hormariso wejiga waa inaad dhaqdo labada gacmood aad ku xijiso madaxa waa inaad masaxdo markaa kabacdi lugahana waa inaad ugu dabamariso marka dhegihii dhegihii kitaabku ma sheegin dhegihii ma sheegin hadda waxaa laga hadlayay wax waajibay ahaayeen oo haddaadan samayn weysadaada aysan ansixayn dhegah haddaad isaga tagto waajibaad ka tagtay ma ah kuwaas waxay ku jiraan sunnooyinka sunnana laga hadli mayn waxaa laga hadlayay furuud ulwuduu waxyaalaha waajibka ah oo laga maarmaan oo haddaad ka tagto intaana waa intii laga maarmaanka ah haddaad ka tagto weesaba aysan ku ansixayn amaa dhegaha masaxoodu waa iska sunno waajib ma aha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.